mas-uuliyiinta hay-adda dhowrista iyo tayada Somaliland ayaa kula wada tashiya oo lagu gorfaynayay heertayadyada qalabka dhismaha waxay ku qabteen xarunta hay-adda mudane muuse xasan xaaji yuusuf gudoomiyaha hay-adda dhowrista iyo tayada Somaliland oo isagu daafuray kulankani ayaa waxa uu yiri aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka shirkan aniga agaasimo xanuun soo dhaweyn iyo mahadnaq aan idin mahadnaqayno ka qaybgalka loogu diyaar garoobayo sidii loo sameyn lahaa ama qaran ku yeelan lahaa heertayeed u khaasa qalabka dhismaha kala duwan si aynu ogaano qalabka dhismaha iyo heertayeedkiisu inuu sugan yahay iyo in kale kulley xeerka hay'adda dhowrista tayada ayaa qeexaya in hay'addu ay mas'uul uga tahay qaranka in ay diyaariso heertayeedada agab kasta oo la isticmaalayo kulley waxaad ogsoon tihiin waxaa jira guddiyo farsamo qodobka qeexayana waa qodobka 25aad xeerka hay'adda dhowrista tayada waxaa jira guddiyo farsamo oo kala duwan oo la sameeyay oo dad khubaro ah shirkadii ka ganacsanayay wasaaradihii ku shaqo lahaaba ay isugu yimaadeen ujeedada technical committees ka loo sameeyaa waxa weeye shayga marka la eegayo tayadiisa ama standardkiisa waa in stakeholder kasta ama cid kasta oo ku khaas leh ay qayb ka tahay si aan hadhow dabadeedna heertayeedkii uu noqdo mid la isla og yahay oo waafaqa oo qaranku u baahan yahay waayo standardku cabirkiisu saameyn wuxuu ku yeelanayaa dhaqaalihii saameyn wuxuu ku yeelanayaa shaygii imanayay marka ka hay'ad ahaan annaga oo waajibaadkaas inaanu heertayeedda u samayno shay kasta oo la isticmaalayo annagoo waajibaadkeeda gudanayna haddana procedure-kan aanu raacnay waa mid caalamiya dal kasta waxaa ka jira waxa la yidhaahdo standards technical committees waa guddiyo loogu talagalay sidii loogu soo diyaarin lahaa heertayeedada qaran kasta dal kasta inagoo taa ka duulaynaba waxaa jira imika oo shaqeeya guddiyo kala duwan oo u badan inay diyaariyaan heertayeedada cuntada iyo daawada falilxamdulilah guddiyadaasi way diyaariyeen heertayeedadii sanad ka hor baana la dahfuray heertayeedadii ugu horreysay Somaliland ay yeelato kuwaas oo maanta dalka lagaga shaqeeyo oo hadday tahay inspection baaristii soo degaysay dekada lagaga shaqeeyo iyo hadday tahay shaybaarkii lagu hubinayay tayada dawada iyo cuntada oo isna maanta shaqeynaya hawshan aynu fadhina ee ku saabsan heertayeedka agabka dhismuhu aad iyo aad buu muhiim u yahay waad ogsoon tihiin xagga amniga ama xagga safety-ga ayuu muxuu ahaa u fiican yahay xagga dhaqaalahana saameyn weyn buu ku yeelanaya marka inaynu heertayeedadii bilowno dhinac walba laga eego ganacsatadii khubaradii laamihii dawladda kala duwanaa heertayeedkaas aad hadhow soo saaraysaan uu noqdo mid la jaan qaadaya caalamka iyo mid la jaan qaadaya mandaqadan ama Geest Africa kulley idinka ayaa aqoon iyo khibradba muxuu ahaa runtii aanu idinku bidaynaa waxaa jira kulley standardo caalami ah oo rich standards hadday yihiin regional standards oo East African standards uu ka mid yahay waa Maxamed Andar MMTV Hargeysa